ilaa laba gawaari oo ilaahayeen ganacsato Soomaaliya ayaa lagu gubay xaafadda Kalafoten ee magaalada Cape waddankani Koonfur Afrika. Gubitaanka gawaaridani ayaa yimid ka gadal markii isku dhac gacanka hadal u dhex maray dhalinyaro Soomaaliya iyo dhalinyaro South African kaas oo sababay in tuure lagu dilo mid kamid ah dhalintii South African-ka ahayd. Arrintani ayaa cuslaatay kadib markii dadweyne aad u careysan oo isugu soo baxeen halka falku ka dhacay waxaanay dab qabatiyeen laba gawaari oo nooca Soomaalidu u taqaano baaki oo gurmad ahaan ugu yimid dhalinyarada Soomaalida ah. Booliiska xaafadda oo ku soo baxay dhacdadani ayaa indhaha ka qabsaday waxayna si cad u daawadeen falkii lagu gubay gawaaridaas ay laayeen ganacsatada Soomaalida ah. Gudoomiyaha jaaliyadda Banaadir ee dalkani Koonfur Afrika Muuse Muddo Afrax oo maanta saxaafadda kula hadlay goobtii xalay dhacdadani ay ka dhacday ayaa sheegay in madaxda sare ee ciidamada ammaanka magaalada Cape Town kala hadleen arrintii xalay isla markaana ay meel wanaagsan u marayso arrintooda. dhibaato yar in canug yar uu sameeyey markuu sameeyeyna kabacdi arrintan lama filaanka ay dhacday halkaas ka dhacday u jeediin waana wax hadda aad looga xun yahay oo aad looga xumaaday dhammaan madaxda jaaliyadaha ama madaxda dhammaan warfaafinta ama qolo kasta Soomaali ama shakhsi kasta Soomaali oo aad u carooday waana arrin ay sameeyeen dadka ku dhaqan deegaankan waxaan ugu tacsiideynaa dhammaan haddaynu nahay madaxdii deegaankan deganeed dadka ay dhibaatadan ku dhacday ama labadan gaari darkiisiin gubatay oo dadkan South African-ka ay gubeen dhammaan uga tacsiideynaa ummadda Soomaaliyeed waxaanu leenahay waxa iska sabraano haddii ilaahay waa laga bixi doonaa ilaahay dankiisa. dhanka kale muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Abubakar Maxamed Cali ayaa isla habeennimadii xalay lagu toogtay tuulada Qalijiya 30 kiiloomitir jirta magaalada Cape Town. marxuumkan ayaa la sheegay inay toogteen koox hubeysan oo soo weeraray goob ganacsi oo ku lahaa deegaanka balse xilliga la dilayay ayaa waxaa la socday xaaskiisa waxaana burcadan ay ka qaateen lacag iyo alaabo kale oo yeelay dukaanka. marxuumkan ayaa lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Cape Town. Cabdilaahi Qorshe.